mid ka mid ah kuwii u qaalisanaa qarnigii 20aad soo maray dunida ciyaaraha caalamka siiba ciyaarta fiirka mid ka mid ah kuwii u qaalisanaa ee soo maray islaamka iyo mid ka mid ah kuwii u qaalisanaa ee soo maray dadweynaha Mareykanka waa Maxamed Ali Kalay. Maxamed Ali Kalay wuxuu bishii January 17 sanadkii 1942 ku dhashay magaalada Louisville ee ku taala gobolka Kentucky ee koonfur bari wadanka Mareykanka. markii uu yaraa waxa la oran jiray Cassius Marcellus Kalay Jr. wuxuu ku kacaamay nolol uu si joogto rag iska celis iyo rag iska caabin uga jiro waxaana taas sababtay isagoo bulshada uu ku dhex noolaa waqtigaas unsuriyada iyo midabta koorka meel sare marayay. isagoo laga sheego ayaa jirta bilowgii waayihiisa ciyaarta fiirka waxaana ay oranaysaa sidan isagoo yar ayaa maalin intuu ay ka qaatay baaskiilkiisii kadib ayuu nin boolis ah u sheegay inuu doonayo inuu garaaco ninkaas tuuga ah markaas ayaa ninka askariga ah la oran jiray John Martin u sheegay Maxamed inay ka xoreyso barashada sida loo dagaalamo halkii aad iska dagaalami lahayd adoon dagaal aqoonin. maalintaas ayuu bilaabay inuu barto ciyaarta fiirka iyo sida loogu dagaalamo waxaana bari jiray ninka askariga ahaa John Martin isagoo ugu tagi jiray Jim Yaro xaafadda ay deganaayeen ku yaalay. sanadkii 1954 ayuu biladii ugu horeysay ee waayihiisa ku guuleystay haddana 1959 ayuu ku guuleystay bilada la yiraahdo National Golden Gloves ciyaarihii Olombikada ee 1960 lagu qabtay magaalada Rome wuxuu ku guuleystay bilad dahab ah bishii February ee 1964 wuxuu la tartamay ninkii dunida ciyaaraha fiirka ugu wanaagsanaa si fudud buu kaga guuleystay markaas ayaa la arkay inuu Maxamed yahay awood cusub oo ku soo biirtay saxadda ciyaaraha fiirka isla sanadkaas bishii March ayuu ku biiray ururkii Islaamka ahaa ee la oran jiray Nation of Islam markaas ayuuna qaatay diinta Islaamka markaasuu qaatay magaca markii dambe aan ku noqday ee Maxamed Ali Kalay 3 jeer oo kala ah 1964 1974 iyo 1978 ayuu ku guuleystay abaalmarinta fiirka ulus ee caalamiga ah. ugu dambeyntii waxa uu dhintay Allah u naxariistay xanuun uu muddo dheer la tacaaliyay oo ka xaleelay sanbabada waxaana ay ahayd 3 bishii June sanadkii 2016.